maalin maalmaha ka mid ah dhakhtar qaliinada ku caan ah ayaa lagu martiqaaday shir caalami ah. waxa uu tegay digtoorkii madaarka diyaarad ayaanu raacay si uu uga qayb galo shirka. waxoogaa markii ay diyaaraddu socotay cillad ayaa ku timid waxaana ku degtay madaarkii ugu dhowaa. waxa uu u tegay digtoorkii maamulkii shirkadda waxaanay u sheegeen inay cilladi jirto 15 saacadood kadibna ay dib u kici doonto diyaaraddu. aad ayuu u naxay digtoorkii waayo saacado kooban ayaa ka hadhay kulankii uu u socday. waxaa la hadlay digtoorkii ninka shaqaynayay airportka waxaana uu sheegay inuu iska kiraysto gaadhi waayo waxa uu ku gaadhi doonaa shirka 3 saacadood oo keliya. waa hadduu gaadhiga raaco wuu aqbalay digtoorkii talada ninka. gaadhigii ayaanu kiraystay waanu baxay. waxoogaa markay socdeen roob xooggan ayaa soo da'ay. daadad badanna way keeneen laakiinse uu diiday digtoorkii inay joogsadaan intuu roobku dhammaanayo. waxoogaa markay socdeen waxa uu arkay inay waddadii ka lumeen. waddadan ay hayaana aanay gaadhsiinayn goobtii kulanka. way joogsadeen. waxaanu arkay guri yaroo ku dhow. wuu degay. albaabkii guriga ayaanu garaacay. waxaana la hadashay islaan weyn oo da' ah kuna tidhi albaabku wuu furan yahay ee soo soco. wuu galay digtoorkii gurigii waxaanu weydiiyey islaantii inay hayso jaajar si uu u dabaysto teleefankiisa. islaantii ayaa ugu jawaabtay waxaan ku weydiin rabay inaad moobilkaaga ii dhiibto si aan qof ula yar hadlo waayo meeshan ma laha laydh ee iga raali noqo. cunto ayuun baan kuu hayaa ee cun intaad dhargayso. wuu fadhiistay digtoorkii si uu u yar nasto. waxaanu arkay islaantii oo marna tukanaysa marna tuxaysanaysa marna ilmo yaroo xool ku jirta yar ruxruxaysa. digtoorkii ayaa ku yidhi islaantii duco keliya ma bogsin karto ilmaha ee waa inaynu dhakhtar geyno. islaantii waxay tidhi waan geyn doonaa laakiin waxaan sugayay inaan helo teleefon aan kula hadlo digtoor. ilmahan yar ayay baan u ahay. hooyadii aabbihii way dhinteen mana dhaqdhaqaaqi karo xanuun xun ayaa haya. waxaana la ii sheegay digtoor magaalo naga fog jooga inuu daweyn karo. waxaanan ogaaday inay aad u qaali tahay tegista meeshaasi. wax hantiyana ma haysto oo aan gurigan ahayn. ilaah baase mahad leh oo shalay waxa ii timid gabadh xaalkayga ogeyn. digtoorka nambarkiisana ii soo heshay inaan la xidhiidho ayaa isku dayey laakiin nambarkiisu wuu xidhnaa. waxaanan ilaahay ka baryayaa inuu ii fudaydiyo la hadalka digtoorka aqbalana inuu ilmaha yar ii daweeyo gurigana qaato wax kale ma haystee. wuxuu doonay digtoorkii inuu iska tago markaasuu ku yidhi islaantii si nambarkaana la hadliye. way u dhiibtay islaantii. markuu arkay nambarkiina uu ooyey digtoorkii oo waxa uu arkay nambarkiisi oo meesha ku qoran. waxaana uu yaqiinsaday inay ducadii islaantu diyaaraddii xumaysay duufaanana keentay waddadiina ka soo lumisay say u soo wadayna albaabkii gurigeeda keentay. haddii aad rabto inaad ciwaan tiktok ah iibso